daawade kusoo dhawow taxanaha gabar ka tirsanayd hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka ee FBI-da oo guursatay dagaalyahan ka tirsan kooxda Daacish ee ku sugan gudaha dalka Suuriya. Qaybtii koowaad ee taxanahaasi waxa aan ku soo qaadanaynaa jacaylku ma lahan xuduud, basaasnimaduna ma lahan saaxiib. haddii aad ku cusub tahay janaalkan marka hore subscribe, share gareey, isla markaasina ka mid noqo saaxiibadeena. haweeney horey u ahaan jirtay turjumaan la shaqeeya hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka ee FBI-da isla markaasina ahayd basaasad kana shaqeynaysay magaalada Detroit oo ah magaalada ugu weyn gobolka bartamaha ee Michigan ee dalka Mareykanka ayaa si qarsoodi ah ugu duushay ama ugu safartay dalka Suuriya 3 sano ka hor, halkaas oo ay ku guursatay hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Daacish. Daniela Grina oo ku shaqeysanaysay turjumaada ayaa la shaqeynaysay hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka sanadkii 2014 iyadoona gacan ka siinaysay baaritaanka muwaadin u dhashay dalka Jarmalka oo ahaa hogaamiyaha kooxda Daacish ee dalka Suuriya, sida ku xusan dukumiintiyo sir ah oo aan weli la shaacin. ninka la doondoonayo ee gabadha ay guursatay waxaa lagu magacaabaa Dennis. waxa uu ahaa cunsuri u dhashay dalka Jarmalka isla markaasina taageero u ahaa kooxda Daacish, kaas oo shaqadiisu ay ahayd in uu baraha internetka uu ka qoro dagaalyahano badan oo kooxda ku soo biira, gaar ahaan kuwa ku sugan wadanka Suuriya. Jarmalka gudihiisa Kasbeerta waxa uu raacsanaa magaca roobka Destrog, halka dalka Syria loogu yaqaanay Abu Dalha Almani. waxa uu ku amaanay hogaamiyihii hore ee kooxda Al-Qaacida Osama bin Laden gabay uu horey isaga uu u tiriyay. waxa uu ugu hanjabay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama in uu ceejin doono. waxa uuna ka soo muuqday muuqaal dacaayad ah oo ay ku jirto mid uu ku haystay madaxyo cusub oo bani aadam ah, taas oo loo fasiray in uu doonayo in uu bireeyo dad badan oo reer galbeed ah, gaar ahaan kuwa u shaqeeya dowladda dalka Mareykanka iyo Jarmalka. waxa ay xiriiro ay la sameysay hogaamiyaha una sheegtay inay tahay saaxiib doonaysa inay la xiriirto. markii hore isma aysan aqoonin, kaliya waxa ay la socotay in ay tahay baare ka tirsan hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka. waxa ayna doonaysay in hogaamiyahaasi ay si dhab ah ay u baarto, isla markaasina xogtiisa ay siiso hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka ee FBI-da. intii lagu guda jiray baaritaanka Grina ayaa FBI-da waxa ay uga digtay dhowr akoon oo internet ah iyo nambaro telefoon oo ay kooxda Daacish ay isticmaashay, waxaana ka mid ahaa koonto Skype ah oo goor dambe loo adeegsan doono in iyada laftirkeeda lagu baaro. muddo dhowr bilood ah ama sanado ayay waday baaritaanka, waxa ayna si joogto ah ay ula xiriireysay dagaalyahanka, waxa ayna u sheegaysay hadallo sarbeeb ah oo ku saabsan inay doonayso inay la kulanto. laakiin intii ay ku guda jirtay baaritaanka iyo basaasida gabadha ay ku haysay ninka u dhashay dalka Jarmalka ee ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda Daacish ee dalka Suuriya, ayaa waxa ay jacayl aad u weyn ay u qaaday hogaamiyahaasi ka tirsan kooxda Daacish ama IS ee ku sugan dalkaasi Suuriya. dhowr bilood oo ay internetka ay isku shukaamiyeen kadib, gabadha lagu magacaabo Daniela Grina waxa ay sirdoonka FBI-da dalka Mareykanka ay u sheegtay inay doonayso in ay u safarto dalka Turkiga si ay dalka Suuriya ay ugu sii dhawaato, ayna halkaasi baaritaanka iyo basaasida ay kasii wado. laakiin sheekadu intaas oo dhan waa ay ka dooneed. dagaalyahanka ka tirsan kooxda Daacish ayaa ku qanciyay Daniela markii jacaylka ay qaaday in ay u timaado dalka Suuriya si ay halkaasi ay sheekada ugu sii wadaan. erayo badan oo jacayl iyo soo dhaweyn iyo weliba hadallo macaan kadib, waxaa lagu qanciyay gabadhii ka tirsanayd FBI-da dalka Mareykanka isla markaasina ahayd turjumaada in ay ka soo tagto dalka Suuriya. jacaylku ma lahan xuduud, balse dhowr bilood kadib waxa ay si qarsoodi ah ay ugu safartay dalka Suuriya, halkaas oo ay ku kulmeen hogaamiyaha kooxda Daacish, kadibna ay isku guursadeen. durba waxa ay bilowday in jacaylkeeda cusub ay u sheegto in FBI-da dalka Mareykanka ay baaritaan furan ay ku sameynayaan tallaabooyinka jacaylkeeda cusub. waxa ay sheegtay in baaritaankaasi halis uu ku yahay, waxa ayna uga digtay in uu dib ugu soo noqdo dalalka Yurub ama Mareykanka. waxa ay sheegtay in dhibaatooyin xoog badan ay kala kulmayaan.
waxa ay sidoo kale email ay usoo dirtay qof aan la magacaabin oo ay u sheegtay in dalka Suuriya ay aaday halkaasna lagu xiray, balse hadalkaas waxa uu ahaa mid aan waxba ka jirin. Daniela ayaa sidoo kale waxa ay halkaasi ka waday jacaylka iyo weliba hamigii aadka u weynaa oo ay u qabtay. waxa ay sheegtay in ninkeeda ama jacaylkeeda cusub uu ka caawin doono wax badan, laakiin waxaa jira warar badan oo sheegaya in gabadhaasi loogu diray wadanka Suuriya in ay soo baarto hogaamiyahaasi. ninkan la dondoonayo ee ah mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda Daacish ee dalka Suuriya ayaa waxaa lagu eedeynayaa in dad badan oo reer galbeed ah oo dhalinyaro u badan in uu ku biiriyay kooxdaasi. waa nin aad u yaqaana xirfadda ka dhaadhicinta dhalinyarada ee online-ka, sida lagu sheegay warbixin sir ah oo la faafiyey taas oo loo soo dusiyey warbaahinta qaar. hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka ayaa jacaylkaasi ku tilmaamtay mid halis ku ah dalkeeda, balse dhowr bilood kadib waxa ay si qarsoodi ah markii ay ugu safartay dalka Suuriya, halkaasna ay ku kulmeen hogaamiyaha isla markaasina isku guursadeen, ay soo baxday su'aalo dhowr ah oo ku saabsan daacadnimadeeda iyo waxa loo diray inay tahay wax ay og yihiin hay-adda dambi baarista Mareykanka iyo in ay tahay wax qarsoodi ah. qaybtii koowaad ee sheekadeena halkaas ay noo joogto. waxaa kaloo jira sheekooyin taxano ah oo ku saabsan isla gabadhan oo aan halkan idinkugu soo gudbin doono. fadlan si aad ula socoto qaybta labaad ee taxanaha sheekadan, rukumo page-kan, subscribe dheh, isla markaasina share garee, kana mid noqo saaxiibadeena si ay kuu soo gaaraan taxanaha sheekooyinkan.